السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال halka aan joogno waa magaalada Hargeysa oo dabcan aan barnaamijyada English waan kala socodsiin doono barnaamijkii ugu horeeyay isla maanta aan Hargeysanimo aan dabcan idinku talagalay waa fanaanka qaaliga fanaanka qaranka Abdikariin Muuse Jaamac oo ku dhashay dalka Djibouti waxbarashadiisa ka soo bilaabay dalka Djibouti sidoo kalena aqoontiisa inta uu yaqaan ku soo bartay dalka Djibouti fanka iyo way aragnimadana ku soo bartay dalka Djibouti ugu dambeynna yimi magaalada Hargeysa oo ku biiray ciidamada asluubta ee Somaliland Abdikariin magaalada Hargeysa wuxuu ka degan yahay xaafada shacabka caawan waa kan oo barnaamijka English oo ayuu marti ku yahay dabcan Abdikariin caaw halkan waxaan idinku soo bandhigi doonaa oo aanu barnaamijka English oo aanu ku qaada dhigi doonaa heesaha iyo kamanka uu Abdikariin qaado fanaaniinta uu marka jecel yahay ee aanu heesahooda caaw halkan ku xusi doono waxa kamid ah Hanuuniye Umar Dhuule Cali iyo sidoo kale محمد موجي فنانين كلا فربضان وحن كله هاي عبدكريم تشاقو كسر دو برامج كيجلن شو أندو بهاي آدي بعضو مهتنتين برنامج كا أنت أديك قريب جلسين آدي بان نيجو مهنقيا نيجو عم بليانيا إجلن شو وقتها أبى أقول فرح سنة إنه عاو هالكن سكوهر فردنا أو مجال دي هرجيس سكوهر فردنا أنا جو سفر درس قلي عبدكريم aragaaga markaas loo arko waxa tahay nin aad u aamusan laakiin nin aad u xigmad badan Soomaa hadee runtaada marka dabeecadaha lagu eego oo Abdikariin adigu u taqaanid iyo sida dadku ku yaqaanaan way kala bedelan yihiin marka Abdikariin dadku sida ay ku yaqaanaan Abdikariin marka dabeecadaada la arko iyo kulli adigu saatay way kala bedelan yihiin hadii aan ku raado Abdikariin horta qof nooceey baatay maxaad isku tilmaami lahayd dabeecad ahaan dabeecadaadu maxay tahay sulan lahayd dabeecaddeeda hadaan ku sheego wax kaaga macneeyo anigu horta ma hadal badni nin iska aamusan oo iska akhlaaq badan oo inta badan dadka la hadlin baan ahay la hadlin cidna aan afka la gelin marka anade dadku inay ila mid ahaadaan u maan jecelahay ay sideeda uu aamusnaadaan oo sidaada ay xigmada iyo ilaahay karaamadaas la aamusan sida aan ahay ilaahay iga dhigay ilaahay ka wada dhigo ayaan leeyahayba ilaahay guusiyadiyaan kule amiin Abdikariin waad ii sheegtay dabeecadaada waxa tahay nin aamusan edeb badan karaamo leh xigmad marka la eego dhinaca aqoonta cilmiga halkee baad ka gaadhay aqoon cilmi ma aqoon waxbarasho meel sare kamaan gaadhin macal meel dhexe kamaan gaadhin anoo yar yaan iskuulka ka baxay markaan ka baxay anoo iskuulkiiba ka bixin iyaan horta fankan iyo suugaantan iyo waxaan jeclaayo anoo caruura aan heeso un iska dhageysan jiray heesii hore yaan iska dhageysan jiray marka heesa waliba intaan anoo heesahana Soomaaliba ku bilaabin waxaan ku bilaabay ahayd Faransiis iyo Mareykan oo Faransiis iyo Mareykan baabadi anigu waan ku sheegnaa cilmi badan tahay Faransiis iyo Mareykan baad ku heesaysay Faransiiska Mareykanka imika waxabada si fiican uma xafidsani waan ilaaway markaan Soomaali bartay waxa keenayana inaad ku dhalatay dalka Djibouti oo saasad luqadda Faransiiska waan dhigtayna de markaas bal intayna barnaamijku maadaama aad ku dhalatay Djibouti oo luqadda Faransiiska aad waxna ku soo baratay waxa rabaa bal reer Djibouti iyo luqadii iyo inaynu salaano marka waxa rabaa luqadda Faransiiska reer Djibouti ku salantida inta taqaano Faransiiska ma Faransiis Faransiis aan ku hadlaa mise aan ku heesaa ma waad ku salaamaysaa waad ku heesaysaa reer Djibouti aynu heesayna maadaama Faransiiska inta badan halka laga hadlo dalka waxa la yiraahdaa je vous salue tout le monde qui sont des Djiboutiens on saluer je vous salue très bien je vous chante une chanson française
waxaan ku yidhi xabadeesoo faransiisana waa nii qaadaya baluqaad waayihiin mudnaanta reer Jabuuti la caawe xabada heesta faransiiska waxa weeyaan Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, c'est une femme libérée. Au fond de son lit, à marcher fondant, elle n'achète pas plus loin de l'orange, mais elle s'en fout, elle se cache quand même. Elle lui ronronne à chaque fois qu'elle sort, elle n'a rien chose en cachère, et bien plus marrant, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, c'est une femme libérée. واو 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 ما شاء الله ما شاء الله معناها وحوي امان بقول كرتي امان ها هي امان ها ودني يعني واو ما شاء الله ريت بوتي عاو مدابا ان وريت بوتي هاي عبد الكريم جاغو دي منانتا وين نسينا halkan ciidamadii waxaad ku jirtaa asluubta ee Soomaaliland ma u qaaday horta iyaga heestay amaana asluubta heesa badan oo heesaan aanu kaliya qaaday ma jirtay laakiin koox baan ahayn naloo sameeyay fanaaniina kooxda magacooga waxa la oran jiray kooxda ciidamada asluubta Somaliland Samatalis marka way markii iyagana hadaba soo noqono waxaan bogaagi iyo kaalintad ku lahayd meel xasuusataa anigu ama heesa ay leeyihiin ciidamadu sideedaba waan xasuusanahay bal way noqtaana inuu ka xijino ناس ciidamadeeda kamida heesi asluubta kamida waan xasuusanahay waxa kamida ahayd hees la iraado arbayaal jiriyo indhihi dalkiyo askar baanu nahay inamiyo gabdhaba isku dheeli tiran ilaaliyaha cadaaladiyo ciidankii asluubtaanu nahay askar baanu nahay aabaqaal shaxdii iyo ururintii asaaskii hore askar baanu nahay aabaqaal shaxdii iyo ururintii asaaskii hore anshaxiyo dhismaha aqoontiyo cimriga waana loo akhriyey asal taasina waxa weeyaan waa inaynu dee mudnaanta siinaa shaqadaada iyo ciidamada asluubta aad ka tirsan tahay iyo Jabuuti iyo waa tahay haddii aan ku weydiiyo su'aalahan ku weydiinaya maaha su'aala dee aad diidi kartid waa su'aalada kamida su'aalaha dadka la wareysin adiga systemkii fanaanku mari jiray mid ka bedelan horta laguma marinayo عبد الكريم بل هرتو waxaan jecelahay daawadayaashayna daawanaya ee ku xidhan barnaamijka English waxaan jecelahay bal heesaynu ku bilaabi doono heesta ugu horeysa ee aad u xuri lahayd daawadayaashada watuma SSSSS horam SSS tu aad adiga jeceshahay inaad la wadaagtid daawadayaasheena iyo adiga waliba khaasatan taageerayaashada waxaan la wadaagi lahaa heestan de hanuuniye yaanaanu aad u jecelahay waraabaha ku cunaya wehelku taaban aad u jecelahay bal waayahay taasina daawadayaasha bal aan jecelahay dad waxa wacaano uguna wanaag badan qofka waana daadiyo wax ku qaata hadalkee ana ku waramaye weedhayda maqaalo wadnahaagu yuunixin naxariista waliga kala wareego warabaha ku cunaya wehelkuma noqoye qofka laba waji laba la dhigani wacaado jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yoo lumin jacayl aan lagu lawadin waqtigaaga yoo lumin ما شاء الله ما شاء الله تعال aan lagula wadin waqtigaaga yulun heesta waxaad inoogu soo xaraba inaan wax ka weydiiyo bal dhanka jacaylka
dhanka jacaylka horta maadaama aad heestaa u xushay say isku tiin horta jacaylka se wax ma ka taqaanaa waan ka aqaanaa horta ma leedahay family oo dee noloshii macaanka ma soo martay may weli ma waad guursan weli maan guursan laakiin waan ku tala jiraa inaan guursado oon imika Somaliland ka dhex samaysto xaas wow markaa ma ku qorshaysanto ma haysaa mise haddaynu doonayna inuu way qorshaysanto way diyaar laakiin horta waxaan ka fikirayaa guri baan dhul bloodoo leeysiiyay inaan dhisto ayaan ka fikirayaa marka ilaahay hadduu ila qabto dee waan dhisanayaa insha Allah ma wad dhisaysaa waxa weeyaan nin xigmad iyo ma ilaahay ku barkay marka waa jacaylkaagii ugu horeeyay oo aad doonaysid inaad guriga markaa dhistidaad hore u wadid ataydi ugu horeysay xanuunka jacaylka iyo wax ma ka taqaanaa inaba may oo waliba jacaylku uma dhicin ba may dee uu igu dhacay xanuun iyo waxa waxba kama arag anu أنا مدها فافا. هاي وحنون أو جعيل كي وحنون يقولك كعينا يا إيميلين. مركا كلمة جعيل كله محد كأمس أنت هاي. جعيل كرت محد كأمس أنت ما وح نول با ما واحد طيبة ما واحد شراء ما واحد بين أبورا ينشرين با. واحد شراء. هاي. واحد شراء. هاي محد قياس لا بس يبدو تلمام لها هاي. سيدانو تلمام لها. waxaanu tilmaami lahaa waa inaan isjeclaado farsamo kale ma garanayo aan kuugu macneeyo wallahi bila si sax ah aad sheegtay waan ku sheegayo waan ku sheegay inaad adigu ma sha Allah aqliga Ilaahay ku siiyay amiin horta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa jiray baraha bulshada aad u qabsatay maalmo dhaweyda la soo dhaafay okay bilad waxa lagu siiyay aad u qurux badan horta biladaasi maxay macnaheedu muxuu ahaa ismeeynis shahaado sharaf haye shahaado sharaf la siiyay golaha wakiilada iyo guurtida Somaliland labadooduba laba xildhibaan oo ka kala socday isiiyeen bay ahayd xildhibaan indo iyo xildhibaan nacnac horta labadaba xildhibaan halkan aan salaan kaliya laabo ugu dirinayo marka maxay tilmaamaysaa oo sheegaysay shahaado sharaftaas maxaad ku mutaysatay in lagu siiyo waa su'aal fiican waxaan ku mutaystay in la igu siiyo anigoo la iga yeeray dalka Dooxa oo kaali la igu yiro invitation la ii soo diray yaa ku soo diray waxa ii soo dirtay ahayd wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacdigelinta ee dalka Dooxa okay ma sha Allah haye yaa ii soo dirtay ahayd marka maxaa lagu soo diray maxaad ka soo qayb galeysay maxaad haye waxa la igu yeeray ahayd xaflad bandhig faneeda fankaad ka qayb galeysay bandhig faneed xagga ka dhacay oo ka qabsoomay okay yaa la igu yeeray marka kolkii aan tagayna bandhig faneedkii anigoo u tagay oo u socda umba leegalo hor imiday waji kala cusub maxaa lagu yiraahday waji kala cusub inta leegalo hor imiday hase yeeshee waxa la igu yidhuun dee adigoo qura ayaa wax fanaana lagu yeeray gabadh iyo wiil wax Soomaaliyeed oo kale oo loo yeeray ma jiro markii aynu Ilaahay ka cabsano ma ogtahay waxa la rag iska celi iyo rabbi ka baq meel ma wada galaan markii lagu casumayay ee casumaad lagu keenayay macnaha horta passport nooceebaad ku tagtay passportkii Djibouti okay passport Djibouti aad ku tagtay invitation ka maxaa ku qornaa markii lagu keenay ma waxa ku qornaa Soomaaliya mise waxa ku qornaa Somaliland macnaha warqadda korkeeda maxaa halka ku qornaa halkaas warqadda dusheeda waxa ku qornayd magaca Soomaali iyo Dooxa yaa ku qornaa Gadar okay marka waxa warqadda ku wada qornaa oo ku xusnaa Soomaaliya iyo Gadar labadaas ku xusnaa okay waan ku gartay haye waliba wasaaradda Gadar ee warfaafinta yaa ku qornayd warqadda dhinaca kalena Soomaali baa ku qornaa okay marka daadtii waxay macnaheedu tahay magaca Soomaaliya meesha ku tagtay may macnaha magaca maadaama Soomaalida kaliya laga casumay wax Soomaaliya aad meesha joogay okay waan ku gartay ana wax Soomaaliya joogay laakiin marka hore la yeedhayay leeguma oran arinta baa lagu yeedhaya
markaad meeshii tagtay maxaa dhacay kolkii aan tagay meesha ee la ii yeedhay aan tagay si fiican anoo faraxsan baan tagay markaygii hore kolkaan tagayna dhowr cisho markaan joogay 3 cisho iyo adoo 4 cisho 3 cisho 2 cisho markaan joogay baan arin maqlay arinta aan maqlayna waliba xageen ka maqlay waxa inama xagaa jooga oo arkay sawiradaydii oo la hoos dhigay calankii xamar iyo calankii gadar ha sawirkaagii baa waxa markii waa sawirkii laga qayb gal lahaa tartanka sawirradii meesha lagu soo dhajin lahaa xayeysiis ahaan baa waxa lagu soo dhigay waxa la soo hoos dhigay sawirkaaga Cabdikariin ahaan oo uu hoosta kaga qoran yahay calankii buluuga ah ee Soomaaliya kaga sawiran yahay calankii buluuga iyo calankii Dooxa labada dhinac yaa lagu kala sawiray marka sawirkaana marka la igu sameyn doono waa markee horta markii hore waxa inanta ii yeedhay waxa igu tiri marka inantu waxay reer Somaliland inanta way u dhalatay macnaha waa reer Somaliland okay aabaheed magaciisi ma xasuusni laakiin hooyadeed waa ayo waa sax waa ayo hooyadeed waa ayo waxa dhalay hooyadeed Cabdikariim Xaaji Cabdi Waraabe واو ما شاء الله inantii saadash okay waaw ma sha Allah iyo sallam kadib markii maxaa dhacay calankii aragtay calankii markaan arkay iyadii baan la hadlay inantii calankan iyo waxaan aad sameysay waa maxay walaal ayaan ku yiri ani calankan iyo arrimahan baan kuugu yeedhi imaad odhan kolka hore bandhig faneed baad kas qayb galaysaa baad tiri kolka hore oo igu yeedhay arrimahan kale waa maxay siyaasad baa mise arrimo kale aad wadaabaan ku yiri iyadii marka iyadii maxay igu tiri Cabdikariimow adi kaliga yaa wax fanaana iyo fanaanad Soomaaliyeedba adaa jooga marka waxa la doonayaa inaad calankii adigoo huwan ku heystid anna maxaan ku yiri anu walaal ma yeelayo anu ninde calanka Soomaaliya u imide meesho in la huwiyana meeyi marka marnaba raali kama noqonde okay marka okay waa sax marka saasad diiday oo waad joojiso waxa tiri anu ma ka qayb galayo xafladiinaba kama qayb galayo macna maadaama calankaas xalfada anigu kuma jiraa tiri waxa dhacay marka calanka dartii baan u diiday anu xafladiiba inaan uga qayb galo okay marka calanka Soomaaliya maxaad ka aaminsan tahay calanka Soomaaliya maxaad ka aaminsan tahay calanka Soomaaliya waxba kama aaminsani anu calankayga Somaliland yaan ka jecelahay okay wax kale xumaani ma jirto calankaaga baad ka jeceshahay bas si wanaagsan waxaan jecelahay bal inay dhankii heesaha Umar Dhuulaan raba bal inuu ku yara noqono Umar Dhuule mala dhiga ku yara kacay waad xasuusatay maalintii lagu lugooyay aad maxaa la gadar tagtay waad garatay dhiga ku booday ma istaji xaba ku boodine waxa rabaa in heesaha ku qaboojiyo Umar Dhuule geesi iyo hanadba laga boosada ragninkii wax gaarada la garwa aqsada waningala abalo gudinka la wanaago samakugu gargaare gareexiyo adongodobu malayn gareexiyo adongodobu malayn hawshan ila galwaye ama gooni noqo kago hankago galab iyo ayaamba lagu guursada
tala aad goor fadhiisa geed lala tagaa runta laga agaraaba layskuma gayaaxaco gees lagama eege gareexiyo adoon godoobu maalayn gareexiyo adoon godoobu maalayn hawshan ila galwaye ama gooni noqo kagoe aan kagoe hadda dhiiggii waa ku degay si fiican anaga maalkii iyo miyirkii wixii bay ku soo noqdeen alxamdulilah way soo noqday waad fahantay wallaahi aad baad iga qoslaysa waa mahadsantahay walaalkay mar kale waxaan ku leeyahay waxaan kugu soo dhaweynayaa dib barnaamijka English oo caawa ay sharaf ii tahay inaad halkan iigu marti iigu tahay cabdikariinow waad ii sheegtay wixii bilada lagugu siiyey qaabkay u dhacday iyo waxaasoo dhan markii bilada lagu siiyey waa adigii qiirooday waa adigii horta waad oyday baa u malaynayaaba haye naxdinde farxada ayaan u ooyey aad si farxadaan u ooyo waan farxada ooyey maadaama de qaranimadaydii aan si fiican ugu faanayeen u taageersanaa shahaado sharaf la igu guddoonsiiyey anigoo ciidamadii asluubtana ka tirsan ee jamhuuriyadda Somaliland macal generaalkaygii ku farxay markuu arkay si fiican ii salaamay cabdikariino jagoy markii aad arrinkaas dhacay oo eeshinkaas dhacay oo aad diiday oo aad soo noqotay oo aad ku soo noqotay oo ciidankaagii ku soo noqotay bal waxaad iga warantaa shucuurtaadi markii aad timi sida lagu soo dhaweeyay iyo wixii aad dareentay wixii ku kordhay iyo waa su'aal fiican markii aan imiday si fiican baa lay qaabilay oo lay soo dhaweeyay oo si fiican baa lay ixtiraamay oo lay qadariyay marka ciidankeegii anoo si fiican u wada salaamaya si fiican bay ii soo dhaweeyeen si fiican baad sameysay oo sharaf iyo karaamo leh si fiican baad iskaga badbaadisay wixii aad la rabay in lagu sameeyo dabkii la rabay in lagu rido waad iska badbaadisay inaad kaarkaaga Somaliland laga gubo baa la doonayaa leeyahay yiri adna denin ragaatay waad isfahamay anna waan fahmay waan iskala hadlay markaan waliba su'aashaada waliba adalan kuugu dara kelmad fiican markaan dooxana ka soo dhoofi doono aan ka iman doono in Somaliland xaggayga u soo socday waxa jiray in yaroo hadala oo iska duubay oo video yahaa wow haye hadalka maxaan u duubay sidee dadkayagan jamhuuriyadda Somaliland ee sharafta leh ee ii rumaystaan inaan de xafladda iyo wixii la igu yeedhay iyo calankii huwa laylahaaba inaan de marnaba raali ka noqon ay u arkaan videogii bay arkeen videogii bay igu sharfeen de markii dambe si sharaf iyo karaamo si sharaf la iyo karaamo leh kulanteen marna madaxweynaha Somaliland mudane Minsud Biixi Cabdi ma saragteen may wali ismanu arag laakiin maray ahaataba mar baan sarki doonaa oo yeeri doonaa kullayba intu ku yeero waliba ba aan waxban oran lahaaba madaxweynaha ha ka dhigo gudoomiyaha kugu daro gudiga itiraaf raadinta sababtoo qalbiga iyo niyadda iyo jiirka iyo dhuuxa iyo dhiiga baad adigu de u hurtay Somaliland waad u hurtay saad maxaan arkayaa oo dareemaysid macnaha dalcay marka heesaha wadaniga say isku tihiin horta hees wadani hore cad booliska u qaaday heese hees wadaniya oon hayaa oo qaranka hees ka hadlaysa oon aanu leeyahay baa jirta haye heestaas waa maxay ummad ma la dhoofshiyo macdaniyo batrooliyo khayraad mugwaylo iidoodu
ciidoodu malab tahay ummad maal la dhoofshiyo macdan iyo badrool iyo khayraad mugwaylo ciidoodu malab tahay qaran madax bannaanoo dhistay dowlad magaclo maarmayo iskoo jira nabadana ku meel maray lama marin habooshe qaran madax bannaanoo dhistay dowlad magaclo maarmayo iskoo jira nabadana ku meel maray lama marin habooshe maantana go-aankii calamkoo midowgii mar labaad ma yeelo maqashay ka dhagale adna ani hayla soo marin adna ani hayla soo marin alla yaa cisag baan ku uri dalkaagii baan ku uri iyo ciidankaagii iyo waxaan ku uri jamhuuriyadaadii intaba niya way kaa muuqataa saad waxaan ku weydiiyey marna ma istiri aad tagtid dalkee ugu jeceshoorta inaad tagtid haddaad somaliland balaaba ka bixi lahayd halkee tegi lahayd xageen tegi lahaa markaad Djibouti ku dhalatay somaliland oo aad ka tagtid dalkee baad jeclaan lahayd inaad tagtid oo u dalxiis tagtid waxaan jeclaan lahaa inaan tago Canada amba Ingiriiska labadaa mida maxaan caynkaa kaa kuu leeyahay fanaaniintu ilaan labadaa dal bay ku badan yihiin wallahi waa runtaa fanaaniintoo dhanba xaggaa bay ku badan yihiin fanaaniintaa ku badan de waxaanu rabe dantaada waa taqaanaa waaw maasha waa tegi doontaa insha Allah meelay fanaaniin joogin maxaan ka dooni de ilaan fanaaniin meel dadaan isku shaqanayay joogaan un baan rabaa walaalma الله الله يا عيسى مرة ما يصير صومالي بوق مقريات من هنا هذا صومالي طول مريا تاجي ما هذا طول مريا حتى مقريات ما تقري كمريون مي والله عليك ولي قف مسؤول صومالي ملا كلن طيب أو دولة صومالي كترسن مي ولي لما تكلم لما كل منها واو بس أنكسر نقولنا هذا بقى بل هي سهل ربع إن هذا ندو وصل نقولنا waxaan ka baqay in dhiigu ku karo dhanka heesaan ku qaboojinaya hay على الأسف mooga raba inaan soo qabto dadka hayska weyneyn maxamed mooge dadka hayska weyneyn heestii ahayd ayaan doonayna soo qabto dadka hayska weyneyn inaad kali wax garaa tahay hayska dhigi walaale ruux waadi farnaan jiray marba laga wareejaa ishaalay wacnaaba maantana walowalaaye anigaaba waqtiga qaar sida wali sidhaada warka la iga guri jiray waxse wiiqay talaade weydiiyey raganimo waxse wiiqay talaade weydiiyey raganimo adbaa waaga jooga latihiin walaalo wajilcaaga bay dumar wacadkabaa ku iibshaan sida waabii qulqulayo wabiga xareeda shimbiruhu ka waabtaan wadhaadu inay yahay waba laga wareerayo isla weynidaaduna waxa tahay ma sheege wacdaaraha adduunkana waxa laga wareystaa ruuxii waxgaraade adigoo waaya arag noqon fanaaniinta aad jeceshahay hal iyo laba bil nooga soo qabo kuwii hore macnaha heesooda ma magacyadooda raba hal iyo labo magacyadooda macnaha ku dayin jirtay oo solan jirtay in fanaankaas xasan aadan samatar
oo kale fanaan kaloo abti ii ahaa oo reer Jabuuti oo isna Allah u naxariisto Saciid Xamar Qood loo oran jiray isna waan jeclaa macal walaalkii oo Cabdo loo oran jiray Cabdo Xamar Qood isna gofane ku magac dheeraa waan jeclaa iyo حسن آدم هسيسا بل ما دابا مقعيسا وفنان وينو لجنية مقعيسا سو يرى قاطع بل هال هيس باربايو هيسا كمدا حسن آدم حسن آدم هيس طبعا هسيسا بوج على عشدوا إلهي erkataaga yudub le ciidana ka dhigay gogol wabiyada cartama iyo cidhifyada abada kaga xidhan iyo buuraha culus cimrigeeda adduunyada waxaa jira col iyo nabade nin caydhiyo nin xoolaane iyo laba iscaashaqay awana kamay tagin caynkeenu ku ogayn adna calafka ku qoran kula seegi maaye caashaqa habaayiciin wow jogay waxaan jecelahay bal inaan hadiiba heesihii dad badan baa ku daawaday oo reer Soomaaliya baa ku daawada oo waliba faaniskaaga fara badana oo waliba codkaaga jecel oo waliba heesahaaga jecel oo fanaanimadaada jecel oo qofnimadaada jecel oo dabeecadaada jecel oo deganaantaada jecel oo qalbigaaga wanaagsan jecel marka calankii diidid oo miyadan ka baqin inay ku yiraahdo bal heesahayga hadaba noodaa ka war arintaas كلمة القرآن الله يساعي جنود إلا فنانين تي صومالي بقى هسان اسكال هاي أرتا هسا مركا لهاس هيو هساها فن مركا لغجرة إيو إيا دي عالنكا اسكوميد ما أدو عالنكا بس بديدي مركا هساها فنانين تو إما با أوران كران دا إميكا نودا حيي أوران كرين imika internal iyo internalna de meel mid ma wada joognaba waxa la xoog baan ku haystaa may aday noo daayo oran laayeen bas lama joogno soo saamaha waaye oo soo la oran jirin fanaanku marka ilaahay haybadaas iyo talentiga siiyay fanaanka kelmadda la yiraahdo fanaanku waa barnaamij bila xuduud ma maqashay معناها فنانك يا دختركو فنانك يا دخترك يا وريها ما قشي يجو وحل يرضى برنامج بلا حدود برنامج بلا حدود معناها ميل أدون كان عاد كركي تشوبتها ما جرتو ميل فنانك اللي يرضى ميل والبوا أفريه هاي دخترك وأفريه هاي meel kasta uu furayay arinta ma maqashay kelmadaas aan maqlay marka maadaama aad talentigan leedahay oo ilaahay fankan ku siiyay oo haybadan iyo quruxdan iyo sharaftan iyo karaamadan ku siiyay ma isleedahay fankaagi hal meel baad ku soo xidhay may hal meel si aan ku soo xidhay inaan ku soo xidhay iskuma haysto aanu meel walba fankayga meel kasta fankayga waan ka heesi karaanu imika xaggan iyo Djibouti ba labada meeloodba iyo dibadaha kale aan ku sheegay de waa sax waan kula fahmay hadda qadar waxaad ka heshay invitation baad ka heshay maanta Ingiriiska dad invitation ka hadii oo waad ka tagaysaa soo ma hadee waad ka soo heesaysaa okay Ethiopia hadaad ka heshid waad ka soo heesaysaa hadii lagu yiraahdo Muqdisho invitation laga siiyay ila dalalkaas ay la mid tahay ma tikir lahay may وما سعودي مرنبا متجين مقدشو أنو حمر وما سعودي أوكي وني نقد في عم بعطي والله هاي مرنبا ما دونا يعدي مع الفرماجو وكاله يقول هذا أنو ما تجي سيدي ذبح مرة بها هي ما دونا واو ما شاء الله إن كل طبعا إن ده تاجر يشهد كينيا يوبدين يهينو dad fara badan baa ku daawado oo fankaaga jecel oo Soomaali meel walba jooga maxaad leedahay Soomaalida ku taageerta meel walba adduunka ka jooga
dadweyne waxaan leeyahay dadweynaha sharafta leh taageera aniga meel kastay joogaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin baan leeyahay intaa adigu taageerisiin codkayga ilaahay haybada ii siiyey aad baan anna niigu mahadnaqayaa codkaaga wali fanka ku joogtaa codkaaga ayaa lagu doortay oo aad ku joogtaa fanka social media ma isticmaashaa marmar kuma badniye marmar baan isticmaalaa maxaad isticmaashaa whatsappka bes facebook ma isticmaashaa facebook laakiin kuma badnid kuma dheeriye whatsappkan aad ugu badana adigu whatsapp bes baad isticmaashaa okay fiidiyowyadii markii bilada lagu siinayay iyo laga soo falceliyay Soomaali aad u fara badan reaction ka soo bixiyeen ma aragtay waan arkay maxay saameyn ku yeelatay waxay saameyn igu yeelatay qaarna dadkii qaarna way igu hambaliyeen igu taageereen qaarna way ka cadhoodeen kuwii ka cadhooday maxaad markaa tidaahdeen kuwii ka cadhooday waxaan leeyahay walaal xarada iska biiyo maan leeyahay anu wax kale maan diidin calanka maan diiday marka kii ka cadhoonaya waxaad leedahay shaqadayda ma tag kii ka cadhoonaya isagii jirta ka cadhoonaya isagii u taala marka waxaad leedahay tagtay ayaa idin tabay waa runaha waa sax sidaa walaal nin adag oo geesiya tahay raganimadaadba de waa waxaynu caaw halkan isku hor fadhinaa marka nin adag oo geesiya inaad tahay anigu horta waan kuu qiray kowde waa tahay ma isleedahay noloshaada inta aad fanka kusoo jirtay magacaaga halkii aad rabtay ayuu maanta joogaa macnaha magaca intaa lagu baran lahay magaca caanimo waad ka gaadhay waan isleeyahay si fiican inaan meeshaan rabay uga gaadhay waan isleeyahay waa ii noqotay inkastoo haddana ii noqotay haddana xaggaa baan ka sii wadayaa anuu ma joojinayo maya waa sax waad joojinaa waaba haybadoo jirka ay ku jirtaa laakiin maslada waad gaadhay limitki aan rabay aad baan u gaadhay meel fiican baan gaadhay meel aad u wanaagsan oo lagu wada bartay oo jago lagu leeyahay yaan gaadhay maasha allah xaggaana waxaad i gaadhsiiyey aan ku gaadhay waa dalkayga aan imiday ee Somaliland Hargeysa waliba hooygii fanka la iraahdo markaan imiday ayuu ilaahay sidaa xaggaa i gaarsiiyay aan rabay waaw ilaahay ha ku si barakeeyo walaal codkaaga iyo magaca heerka aad ka gaadhay amiin iyo karaamada aad leedahay iyo diganaanta iyo sharafta aad leedahay ilaahay halka ha kaaga sii wado kulli guntiga gabagabadii barnaamijkeenu soo gaadhnay bal aan ka soo yareen noqdo oo Cabdi Tahliil warsame heesiisa maxaad ka jeclayd heestiisa mid baan aad u jecelaho taasina waxa weeyaan heestan uu yiraahdo jacaylayatin labaan abuurno adogaydo intaanu dubkiisa mudibaan ilaalsho wanadkeeyo cabbayli sidii u dhowre markaan kulahaa ugaasoy ujeeda fog baan lahaa afeef badan baan lahaa ammaanada dhowr lahaa markuu u bixii isgaadhay markuu intifaacsi joogo maxaa uruxumaada keenay maxaa oridaa ninkeedii able lagu sahaanayaayo waliba askaararka dunidiyo maxaa eedii xambaarshay abaaldarane hadda aan ujeeda xintaanu buuxday ilowsha dhowee nafsaa dhaxdeenan ka oodano wuxuunbay ugu barracdo anigu ka aarsan maaye ilaabaan talada saartay oo ilaabaan talada saartay
ما شاء الله إلهي وان تلاد صارنايو إن ده واحد ما يصير هذا الواقم دعاء كحدي إن ما ترتاح هاس أديك خصوصي سو عاد مرة والبسك قاعد مركز تقول لي شوتي وأديك خاص كوا حبد هيسون aad u jecelaho heesahayga kamida yaa jirta waliba xabad heestaasi tartanka heesaha hirgalay ee Somaliland lagu qabto tartankii u dambeeyay iyaan kaga qayb galay ee wasaaradda warfaafintu qaban qaabisay heestaasna waxa la iraahdaa magaceega adiga 101 بالوجه سيدا adiga 101 qurux lagugu kaamilay adiga 101 qurux lagugu kaamilay kulligeeda duunyada koobkaad sidataa anna kaalintaydii karti iyo ufnaaniyo anna kaalintaydii karti iyo ufnaaniyo xiisiya kalgacal baan kugu sii kordhinaya xiisiya kalgacal baan kugu sii kordhinaya kaalay axubbi kaalay 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 kunjeer kaalay kaftan laba isjeceliyo sheekada la kala guro kaftan laba isjeceliyo sheekada la kala guro kaariyo xanuuniyo kolba nabaar ka soo kici koraha wadnaha iyo anna kaliya laabaan koraha wadnaha iyo anna kaliya laabtaan kugu kaydiyaayo kamarmi maaye kugu kaydiyaayo kamarmi maaye kaalay axubbi kaalay 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 kunjeer kaalay واو 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 هستي أطرتك كوكشي واتي مجرتا قف عاد عاو عاد هلكن الصلاة وقدر يسيدو وقف عيد السنة سيد برامج كيجلس وما دام إنه قبيل قدام بيسوق يعني حقا نوحان آد يا آد وقاهم بليانا يا أن آد يا آد هرتو السلامة يا هو يدي معانو آد يقو قاليا أو جبوتي جوكتا كذا طيميا may wala iga weyn yahay laba inamood ba iga weyn saddexna way iga yaryihiin dhaxdaan ahay anigu marka hooyaday iyo walaalahay baan xaggan dhammaan ka wada salaamayaa iyo waxaan salaamayaa taliyahayga generaalkayga libaax iyo taliye xigeenkayga fooxle ciidamada asluubtoo dhan dhammaan xaggan baan ka wada salaamayaa waa salaamantahay waa tahay aad baan anaguna salaantaada iyo sharafta iyo karaamada leh aan ku salaamayna intii aad salaantay halkanuun ayaan anaguna waraan ugu gudbinaynaa ad maadsan tahay magac weyn waad leedahay jagoy jagon hooyo ii bixisaa tir waa ogahay inaan hooyo ku bixisay hooyo ku bixisay marka maadaama jago lagu yiraahdo hadii baad imika adiga guri dhisanay guursanayay wiilkaaga ugu horeeyay maxaad u bixin lahayd adiga hadii jago lagu yiraahdo wiilkayga ugu horeeya waxaan jecelahay inaan u saaro wiilkayga ugu horeeya cabduqaadir baad bixinaysaa magacaasaad jeclaatay waa tahay daawadayaal waxaan jecelahay inaan barnaamijka England Show ee caawa si toos idinka soo gudbinaynay magaalada Hargeysa dabcan xaafada jigjiga yar aan halkaas ku soo gabagabeeyay barnaamijka waxa marti igu ahaa fanaanka Cabdikariin Muuse Jaamac oo ku dhashay dalka Djibouti waxbarashadiisa ka soo bilaabay dalka Djibouti sidoo kalena aqoontiisa inta uu yaqaan ku soo bartay dalka Djibouti fanka iyo way aragnimadana ku soo bartay dalka Djibouti ugu dambeynna yimi magaalada Hargeysa oo ku biiray ciidamada asluubta ee Somaliland Cabdikariin magaalada Hargeysa wuxuu ka degan yahay xaafada shacabka caawana waa kan oo barnaamijka English Show ayuu marti ku yahay dabcan barnaamijyada waxaan ku xigana ayaan dib aad halkan nooga daawan doontaan waxaan u mahad celinayaa walaashay mataantayda Sagal Mustafa Xasan oo qayb ka ahayd barnaamijka iyo sidoo kale Kaamil Khaliifo isaguna
muuqaalada quruxda badan ninka duubaya bahda hawraar iyaguna barnaamijka noo fududeeyay walaalkay waxaan leeyahay barnaamijka ku xigay intaynu kulmayno aragga ku xigay intaynu kulmayno annagoo isku duban waxaan leenahay aan ku leenahay soo dhawow مدايو أنتا ما إلاو جعيلود رغن مايو on إلا عبي إن مايو أي رويرا مدايو اللي يا مسي مايو